af Soomaaliya ku hadleen way asxaabta waa idin salaami kanaalka ku soo dhawaada anigu magacay Xabiiba ah kanaalka Xabiiba waa ku soo dhawaada maanta mowduuc cusub waa idin heeyaa waxa idin heeyaa qof cusub walaalkeena Xaliye Axmed Xaliye aad iyo aad u mahadsan tahay maanta maadaama kanaalkii online ahaan oo soo gashay isbardadka هذا ما صنت حبيبي رنتي هرت مرة ورا آد يا ذاك ما علينا إنا يوسع زونتي كنالك كنالك رنتي آد بقول السعودة وحاول مقالة سود كتير إياه سيدا آد ذاتك كوه حرن اسكو حرنتي رنتي أو واحد كده يشمودن مجاعي هو أحمد حليه محكون الله هاي دلك تركيا جارهن مجال اسطنبول وحاول حبيبي ممكن فوقنا لو مجالك اللي جوبنا أون إنك بندامي عندرتي وحاول اسكو إمام ويني لكن هذا مقارنة سمعنا فرصة هالنيروتي ها كورونا عدت كدبي نفتو كينا مركا إلهنا قالوا مركا أصحابتينا وحاليا هاي دمان أصحابتا آد برشوا ناكسن دمانتينا إن شاء الله إنتان إنك بدنا إن شاء الله واسألك دونا هذا ما صنت حبيبي adiga mudan xali markale mar saddexaad kanaalka ku soo dhawaw maanta waxaan rabaa waxyaalaha qaarkood in oo aan ku warsado oo ku saabsan ardayda waxbarashada wadankan maadaama oo labadiinba dad oo waqti badan oo wadankan oo joogno oo naxne kanaalka YouTube kan hoos ku soo qora Axmed Xaliye asxaabta ardayda oo ani oo ila socdo kulligiina Xaliye subscribe u saar insha Allah Xaliye waxaan rabaa maanta su'aalaha qaarkood inaan ku warsado ani asxaabteyda su'aasha ugu horeyso oo ah ardayda waxa tahay dadka ugu horeeyo inta imaanaye maanta sanado badan meeshan joogto dugsiga sare inta ku soo dhameysatay dugsiga sare hadii oo maanta lagu celiyo qof oo waxa tahay jaamacad ila oo jaamici ah dugsiga sare maanta hadii lagu celiyo maxaa isdhihi lahayd mise dugsiga sare ardayda hada dhigtaan mise hadii maanta bii celin lahaa saan waa sameyn lahaa mise saan casharkan kale mise waxaan kale ma sameyn laheenin سؤال ساق ورسناها ما حك بدل اللي هاد مسوح أو جعشة إنها كبدشت مجرتا. والله أنت يرتبى سؤال هذا مهم مثلا أو كسر نواقضيبة وحا هاي قف أو سيدا هروب كسر نواقضيبة وحا هاي قف دكسي سنة هالكان كلكتي دور السنة أنا جوجا دلك التركية دكسي سنة هالكان أقول ما يستيد سدوا كل جامعة دين سدوا كله مركا أنت waxaan dhihi karaa maanta noloshayda fursadaha ugu waaweyn ee soo maraa waxay ahaayeen inaan fursad u helo inaan dalkan Turkiga dugsiga sare aan ku dhigto runtii dugsiga sare waxay ahayd runtii meel oo aad u fiican ahayd waxyaalo badan aan ka bartay waxa hadda maanta aan ka shalaynayo runtii ma jiro waxa ahay qof oo nolosha cashar ka dhigta oo wixii qalada soo galay xataa ina cashar ka dhigto ama waxba ka shalaynin oo hadda kadib kaga fiirsado qaladaadkayga hore dugsiga sare runtii waxay ahayd meel oo international ah waxa isku imaaday wadamo aad u kala duwan hal meel asla dhiganaynay marka waxyaalaha ka bartay meesha waxay ka mid tahay tusaale ahaan waxaan fursad u helay inaan dadkan si fiican u barto waayo waa ogtahay maanta dalka markaan joognay waxay ahayn dad oo ku hareeraysan kaliya dadka reerahooda u dhadhow dalkiina waxaa ka jira oo nasiib xumo qabyaalada ka jirta waxa lagu leeyahay reer hebel sound waa hebel hala socon adiga waxyaalahaas ka jiray dalka markaan joognay laakiin markaan anaga imaanay dalka Turkiga waxaa helnay fursad inaan dadka si dhow isku barano tusaale ahaan iskuulkeena waxa dhiganay asxaab dhalinyaro laga keenay gobol kala duwan waqooyiga Soomaalida koonfureed meel kasta dhinac kasta Soomaalida meel ay degan yihiin dad waa ka imaaday marka runtii waxay ii ahayd runtii fursad aan dadka aan ku barto qofka waxa la lahaa don't judge a book by its cover qofka macnaa waxa lagu qiimeeyaa personalities lagu qiimeeyaa runtii taasina waxay ahayd runtii waxyaalo aan aad ugu farxay aan dalkan ama iskuulka waaga dugsiga sare aan joogay ku bartay sidoo kale waxaan fursad u helay inaan dad Turki ah dhalinyaro Turki ah wax la barto aan iskuul isla tagno halkaasna aan experience fiican kaga helay oo maanta sida aan maanta adduunka aan u eegay isbedeshay waayo waa la socotaa waxaa jirta tusaale ahaan raha markuu ceelka ku jiro wuxuu moodaa in cirka ay tahay wareegaas wareega oo ceelka intaas buu maleeyaa laakiin markii laga soo saaro ceelka
cirka inay baaxad weyn tahay markaas uu dareemi karaa. Anigana same sidaas camal ayaan Soomaali markaan joognay intan ugu hareeraysanaa reality-ga noo ahaa, dadkan ugu hareeraysan unbaa dhaqankoodii waxaas unbaa anaga sax noo ahaa. laakiin markaan dalkaan imaaday runtii wax badanaa iska bedelay oo waxaa bilaabay inaad dunida si duwan u eego, sidoo kale aan wax badan aan ka barto nolosha meeshan. waayo waxbarashada waxaa aaminsanahay keliya inaysan ahayn waxyaalaha iskuulka iyo buwaagta laisku bara inaysan ahayn. waxaa aaminsanahay waxbarashadu sidoo kale inay nolosha ay tahay waxbarasho, oo wax walba aan maanta aan nagu dhaca dunida, wax walba aan sameyno inay cashar inoo tahay. marka runtii aad baan ugu faa'iiday, waxyaalaha ugu faa'iiday taas bay ahayd. waxyaalaha qaladaadkii soo marnayna waxaa aaminsanahay inay ii tahay casharo. ما شاء الله حالي أدي أنا أم صنتها أو كورة أحسنها يعني تاس أساس جوابتها بما أنا صومال مركز أو جوي جرنا نسقفك صومال كل جسمه أدي بي أنا كنتش تمشي كسوكرت هدي أو ماشي لك حجرت أو بنانك آدين قف كاسي والله بم شيء جاي وحيال بدنا كمقال وأركتن بدر وحيال بدنا كمقال من قف كحلو درهم كرا إنه حسو زائد إنه وحسو زائد مركو أس بنانك بحا أدي أنا ما سمعت حالي جوابت في عنه أدي نسي سمانتا سؤال شيء اللي بعد أورو إن أو أنا كورس ضاء وحاواي أرديدا مثل مركا أنا أنت جوكنو dad badan asxaab badan ay soo warsato maanta kanaalka YouTube-da kala xataa video oo yaris oo daqiiqooyin yar waqti sameeyay hada ka hor luqada ku barataa mise waxbarashada barnaamij jaamacadda medicine da barnaamij caafimaadka mise waxyaalaha kale English ma ku barataa mise afturka ku barataa. dadka badan hadan waxay aaminsan yihiin ba Soomaalideen hadii oo afturka wax ku barata in oo wax ku tareenin. marka هذه أبنانك هذا بري كمان هذا أبنانك أديت مس وحبرش ميركل وأديت مس شخو وأديت وحبرش هذا أنت كون ما تو واحد مسمسين كرتت لأن القضية وحاك صوبرت ترك واي فارس واي ساسا لأن مسيناي مرك هذا ما أنت محايس ليه هاي مسه ما دام وقالت هاي قف أو ما أنت هذه القضية سدوسي سر ماشان القضية أفكار ترك صوبرته جامعة هذا ماشان أفترك وكبرنو هذا ويقول ما ربطه إن شاء الله. marka maxay isleedahay adiga hadhow kam bari ka maalin shaqo ma helay mis waxyaalo kale caqabad waa la kulmi doontaa oo isleedahay luqadana wax ku soo baray darteed mis dhow saamsanta su'aashaas waay aad waxaa jiro tusaalaan Soomaalida mis dadka waxyaalaha ay isku qaldanaa jiro oo ani aaminsanahay waayo luqadda waa gooni cilmigana waa gooni. معنى أقونت ما أنت أبرتيد مركزته لغة نقطة هنقطة أف عربي هنقطة إنجليش كبرة تركيش كبرة أف هندي كبرة ما أنت it doesn't matter أمين سنة هاي أقونت مركز وأقون تسألها وحكاية سو قاعد كده تسألها دي وحتى قف ومدرسة برتي وعافمات كمان أنت برتي أو سيدا ما ينربع أو دكتور نقنا وبري كمالين دلك هذا كنا قتيد oo halkaas isbitaal kaga shaqeeysid dadka luqadaha kula hadlaysa dadka Soomaaliyeed ma Turkish ba ma af Soomaaliya kula hadlaysa laakiin af Soomaaliya ku hadlay ما حد ماشي عم بقف Soomaaliya دي caawinaysid maanta igra la qalka ka dhaxgala maanta adoo maanta isbitaalka joogtid mis anaga oo baraadka soo sameeyeen xitaa qof oo maanta maamo Soomaali mis aaba Soomaali mis qof oo maanta Soomaali dii aragtid Soomaali ma tahay bayskaari caaga islaam mis qofka warsanay adi isla markii af Soomaaliya ku wada hadlaysid isla markii waxa oo adi oo asirawo ki Soomaaliya meeshaas af English mis ku wada hadlaysid mis Arabi mis af Turki آدي ما أنت هذا السعودي تقولين عربية تقنية في عربية وكل شيء عشان ماشي وحكوا ذا علم مركز تواسكود هذه ما أنت في تركيا وحبسهم برتي لكيس الشقة مركز تا ذاتك على شيء قين يصير لغة يكون حرنتها مركز هذا درت هذا أنا مهم ساس وين إلى ما أهن لغته في تركيش كهذا نقطة إنجليش كان of course هذا مركز تا إنجليش هو مهم يعني سنة هاي وما أنت عالم كردان لو هذا ماشي تكتب بإنجليش لو هذا دل كان تركيا مالي سيف حوا إنجليش كأد وما فينا مركا أقونت وجوني واي وحياة لها برنينو ما أنت إنجنيرك أقونت وسوقات بريك مال Soomaali guri uu ka dhisi karaa qofka caafimaadka bartana sidoo kale Soomaali hol bis adduunka hol uu ka qaban karaa luqaddu waa kaliya waa communication waxyaalaha ku xiriirana labada qof waxyaalaha ku xiriiraan waaye English kana waa runtii waa muhiim waaye
marka qofkay ku xiran tahay macnaha qofka hadduu dadaalo asiga uu aaminsan yahay asiga in Englishka muhiim tahay tusaale aniga maanta Englishka si fiican ugu hadla dugsigii sare af Turkish kusoo qaatay sidoo kale jaamacadda boqolkiiba 30 unbaa English ahayd casharadayda laakiin maanta Englishkana aad ugu fiicanahay sababta waxay tahay aniga shakhsiyan waxaa aaminsanaa oo jeclaystay inaan Englishka barto si gaar ah anoo waxbarashada watana Englishka waa ku barto marka qof kasta sidaas uu yeeli karaa ma ahan in luqadda laga welwelo waayo macnaha birika maalin waxa uu ahay Englishkana muhiim bay ku tahay inaad iska baratid muhiim waa laakiin maanta luqadda ayaysan noqon waxyaabaha sabab ugu dhigaysid inaa waxbarashada aad diidid ama halkan u yimaadid aad u maasanta xali oo ku taageersanay si fiican ay yeeshay luqadda oo Englishka oo dhan kale ka baratay maanta aad muhiim u tahay caalamka meel kasta oo joogno luqadda rabna waxa ku barno Soomaali ah hadda wax yar hadda ku daro meeshan tusaale ahaan aniga dad waxa aqaana Turkish aad u badan aqaana waxbarashada soo dhignay iskuulada soo dhignay tusaalaan ardaydaas dad qaar waxa ku jiray oo English dhanba oo Turkida English aan ku hadli karin laakiin dhalinyaro badan Turkida dhalinyaro badan oo Turkidana waxa arkay oo Englishka aad u yaqaan tusaalaan oo maanta Englishka aad u yaqaan oo Englishka ku hadla taasina waxa uu soo qofkay ku xiran tahay macna qofka si asigu u dadaalay inay ku xiran tahay aaminsanaa qofka markasta in asigu nafsadiisa iswarmarsiiyo waxyaalo kale in oo sii barto ani markasta idinkugu talinaa asxaabta markastana waaba idin sheegaabo tan kale anaga markii oo anaga caafimaad barneen medicine barneen markaa inta joogtiin meel kale waaba arki doontiinbo jaamacadda been ma idin sheegay fasalka ugu horeysa ilaa fasalka aan hadda maanta taaganahay macalin kasto qof kasta macalin maanta wax noo sharxaayo mis qof kasta dhakhtar mis qof kasta oo professor markasta waxayna af Englishka bartaa maanta af English muhiim ma aha mis luqadeen bartaa qof maanta ku dhahaysa mala jaamacadda sababtoo ah markasta macalimiintu waxay dhahaan mis anaga saa u jeedno caalamka wax kasta inaad ka warqabtid hadaa rabtid wax kasta inaad la socdid hadaa rabtid waxyaalaha kale literaturiska kale waxyaalaha kale oo soo baxayaan maanta waa ku qasban tahay in oo English ku akhrisid waa ku qasban tahay dadkaas kale luqadood kale waxyaalaha kale iga sameynaan in oo fahantid saas darteed Soomaali hadii joogleed xataa waa ku qasban tahay inaad English ka istid mise wadan kale hadaa joogtid mise wadan kale hadaa joogtid marka meel kasto anaga nafsadeena in anaga isna waay saasaan ku tarin lahaa حاليا أدي أنا وما سنتين سؤال سفيعا أو مانت أو نو شكت أو نو شرح إن شاء الله وحافلة أصحابتي إن أو أين أو فاهمين أو كفائدين صوبته هو والله أدي أنا وفرح سنة هاي مانت سؤال عشان مركز طول وسؤال العليا مركز طول صور صدا ضدك ويحب أمسيين وحتى وجهك وجهه وحكم فائدة ست أفطر كم محاوي بس ليش محاوي طلع أنا زائد والله يا عمي والله معناه إيش ولول أو معناه دراوة معناه لون بهن واحد إن يقولوا وحبرش معناه إن كرك الإسكسارة مع أصحابته أو أصحابته نداونا هاي أنتي مهم دواسة إني شيء واي لكن إن شاء الله إنا فهمنا رجينا دمنتينا حالي هاتي أنا وما صنت هاد مركب سؤال شكله أو أني أورا وإن كورسه هرت أصحابي waxaa idin hayaa warar waa inaan idin sheego maanta waxaa idin hayaa surprise oo yaris oo idin sameeyay markasta TikTok ee asxaabta oo TikTok oo anaga oo ila socdaan asxaabtaas hadda ka hor way soo warsadeen geedkaas ma ujeedin oo gadaal oo jadwalka oo wax lagu qoraayo jadwalkaas aan ku degsaday ani casharada wax akhriska maalme iyo jadwal maalmeedkii waaye marka ani iyo walaalkiin xaliye maanta waxaa rabnaa surprise-kaas in oo anaga idin soo jeedino surprise-kaas geedkaas in oo ani qof oo haddii inaa u siiyo oo baqtanisiib mise dadkaan meeshaan jikilise u dhahaan marka waxaa rajaynaa in oo ka qayb geli doontiin kaliya geedkaas ma aha kan wuu ku jiraa kan waaba kasaysiinba asxaabta oo make up-ka way ka saayaan make up mise waxyaalihin kale oo rooseetada waxyaalaha kale make up-kaa la saartaa laakiin anisaana u isticmaalaa qalna ahaana u isticmaalaa kan waa kusoo daraa iyo qalmaantaan naftirkoodba ardayda kale waxyaalaha kale isticmaalaan ardayda qalmaantaanne haddii ahaan waa u siinaa insha allah kulligood marka hal qof aa siin doonaa geedkaas asoo cusub kuwan kale ayagoo cusub kulligood isbuuca horteena insha allah in oo waxaa rabaa oo
surprise-kaas oo idin sameeyo qof kasta uu ka qayb gali karaa waa isticmaali kartaa mis qofkaa jeceshaa haddii ahaan u siin kartaa wax oo lacag la-aan laisku siinayo waayo wax weyn ma aha hadiyad oo yaris waay oo idinla soo jeclaa in idin siiyo ciidiyaa rabaa inaa sameeyo marka ciidii hadiyadad ahaanteed ciidii wadankan banduweynaa lagu jiray meel mala aadeynin kaargoyaasha meelaha dhan way xirnaayeen marka hadda waxaa rabaa qofkii ku guuleysto insha allah in oo ani oo u diro meeshuu joogo geedkaas qalinkiis kan waaye qalinka caadigiisa buurda waaye kanna waa ku tirtiri kartaa iyo haddaa rabtidna waxaaba sii samayn kartiinbo mandil oo caadi ah ku tirtiri kartiin saa rabtiin oo isticmaali kartiin kaliya waxa laidinka rabo in oo adinka samaysiin kanaalka oo walaalkay xaliyay in oo subscribe u saartiin kanaalkay in oo subscribe ii saartiin iyo tiktoka iyo instagramka in anaga oo noo wada saartiin kulligood hoosaa kusoo qoraa linkiga hoosaa soo dhigaa instagramka ka samayn doonaa insha allah xaliye instagramkiis in follow dhahdiin iyo instagramkii in idinka follow dhahdiin qofkii ku guuleysto waa idin soo sheegi doonaa asxaabtiina dadkiina kulligood waa isii gudbin kartiin waa maasantihiin hadda marka su-aaleynaa sii wadanayna xaliye